kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo inta badan aad kala socotaan barahayaga bulshada ee nuxurka dhacdooyinka. barnaamijka gaarka waxaan ku dul istaagi doonaa duulaanka ay qorsheynaysa dowladda Yuhuudda ee gardarrada ah ee ay doonayso inay ku qaado deegaanka loo yaqaan Rafax. haddaba Rafax waa deegaan nooceeya, dad intee leeg ayaa halkaasi ku nool, horay duulaamo ama dagaalo ma uga dhaceen, haddase maxay tahay ujeedada ay Israa'iil ay ku doonayso inay deegaankaasi ay ugu duusho oo ay ka fuliso howlgal iyada u gaara. barnaamijkan waxa ay la falanqeynaya oo arrimahaasi iyo arrimo kaleba daawadayaasha ku xiran janalka nuxurka dhacdooyinka uga jawaabi doona Siciid Cabdiqaadir Albani. marka hore kusoo dhawow barnaamijka nuxurka dhacdooyinka ee janalka nuxurka dhacdooyinka. waa dhowahay Toronto, dhammaan daawadayaasheen waan salaamayaa, aad baad mahadsantahay. intaynan wax kale u gelin, marka hore deegaanka Rafax waa deegaan nooceeya, ku nool dad intee leeg weeye, muxuu taariikh u leeyahay? waad mahadsan tahay. deegaanka Rafax waa deegaan istiraatiiji ah, waxaanu ku yaalaa inta u dhaxaysa xuduudda Masar iyo sidoo kale Falastiin. waa deegaan runtii lasdhihi karo muddooyinkii ugu dambeeyey hooy u yahay shacabka Falastiin oo usoo barkacaya deegaankaasi, kana soo barkacaya Gaza colaadihii ugu dambeeyey iyo duqeymaha ba-an ay ku hayso gumeystaha Yuhuudda ee Gaza. marka aan usoo laabno deegaanka Rafax uu jirsaday 5,000 oo sano ayuu jiraa deegaankan, sida taariikhyahanada ay sheegayaan oo la degan yahay. marka waa deegaan runtii taariikhyahanada ay yiraahdaan waa deegaan soo jireen hore u ahaa. dabcan waxaa soo maamulay Greega, Romaanka ilaa Ingiriiska ayay markaa soo maamulayeen deegaanka. haddaba markaanu fiirno dadka ku nool inta badan waxay gaarayaan lagu qiyaasaa, inkastoo laisku khilaafsan yahay, ilaa 4 milyan la gaarsiiya. laakiin 4 milyan waxaa Toronto la sheegaa in inta badan shacabka soo barkacaya ay tiradaasi imika buuxdhaafinayaan Rafax ay yihiin waa kuwa runtii 4 milyan ay gaarayaan. marka dadka degnaa iyo guud ahaan kuwa Gaza ka soo qaxay marka la isku daro, runtii deegaanka waxa uu leeyahay lagu xasuustaa gegida diyaaradaha loogu magac daray Yaasir Carafaad oo laakiin xilligan uusan shaqaynaynin. runtii imika marka laga hadlayo deegaanka Toronto waxaa xusud mudan 1 kilomitirba inay ku nool yihiin 10,000 oo qofood oo Falastiiniin ah. marka waa deegaan istiraatiiji ah runtii halka ku yaalo oo u dhaxeeya Sinai oo xuduud la ah runtii dhulka Masar oo Sinai iyo sidoo kale Falastiin, halkaas u dhaxeeya. waa gartay. badkaysa waa meeqa kilomitir Rafax markii bad ahaan la dhaho? waa 55 oo kilomitir ayay sheegaan marka la qiyaasayo. waa meel runtii istiraatiiji ah, dadka ku noolna waa dad markaa xeebeed kilomitir oo isku weer ah aad iyo aad. horay dagaalo la yaqaana ma uga dhaceen marka laga reebo kan hadda ay Yuhuudda qorsheynayso oo ay doonayso inay maaragtay duulaan dhinaca dhulka, cirka iyo waliba baddaba ay maaragtay ay ku gasho? hore dagaalo wuu usoo maray deegaanka, laakiin muddo ayaa laga joogaa. waxaan xasuusanaa marka laga hadlayo 70-meeyadii in halka ay isku dirareen Masar iyo sidoo kale Yuhuudda. walow Masar dagaalkaasi looga taageeronaaday oo Yuhuudda ay ku guuleysatay oo Masar lagu jabiyay dagaalka. laakiin intaa wixii ka dambeeyay isbedelo iyo sidoo kale horumar ayay markaa deegaanka ka jiray. iminkana laakiin dhibaatooyinka Rafax ka jira waxaa ka mid ah colaadda Falastiin ayaa aad u saameysay, shacabkana way buuxdhaafiyeen, xaaladdu aad bay u adag tahay. dadka ugu badan oo halkaasi ku nool ma dad horey u deganaa oo Rafax deganaaba, mise waa dad hadda kusoo barakacay oo dagaalka Gaza kasoo barakacay? laba loo qaybinayaa. dadka hore u degnaa waa dad marka tiradooda iska yaraa, maadaama deegaan oo xuduud la ah Masar uu yahay deegaanka. laakiin ha yeeshee waxaa xusud mudan 6 bilood lasoo dhaafay duulaanka weynaa Xamaas ay ku qaaday Israa'iil runtii waxa uu noqday mid saameyn weyn ku yeeshay reer Falastiin.
deegaankana ay usoo barakacaan. Deegaanka wuxuu istaraatiiji yahay shacabka Falastiin maadaama gargaarka kaga yimaada Urdun iyo sidoo kale Masar lasoo gaarsiinayo deegaanka Rafax. Marka sidaasay u doorbideen kaga soo carareen shacabka Falastiin. Weliba deegaanka Khan Yunis marka uu dagaalka uu zaa'id halka uu ku socday, waxaa xusid mudan shacabkii deegaanka Khan Yunis joogay iyo guud ahaan Gaza inay usoo barakacaan Rafax. waa tahay intaa haddaan kaga nimadno taariikhda guud ee ay leedahay deegaanka Rafax oo hadda ay ku nool yihiin dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin oo kasoo barakacay duqeymaha iyo weliba dagaalka gardarrada ah ee Yuhuudda ay ka wadaan marinka Gaza. waxaan u imaanaynaa dagaalka ay hadda qorsheynayso dowladda Yuhuudda iyadoo xalayto golaha dagaalka ee Israa'iil ay fadhiisteen sheegayaan ilaa maanta inay soo saari doonaan xilliga la weerarayo Rafax. muxuu yahay ujeedka ay ka leeyihiin in ay weeraraan meel dad rayida ay sidaan u degan yihiin oo weliba dadkii barakacay ah inay mar kale ay weeraraan dagaal ciriya dhulan ay ku qaadaan? xusud mudan in Yuhuudda in badan ay ku celceliyaan in Xamaas ay ku sugan yihiin Rafax. haddii Rafax ay iska dayaan aysan howlgal ay ka sameynin oo uu yahay mid marka weli dagaalka natiijadiisu ay harsan tahay. laakiin waxay sheegeen Yuhuudda in haddii Rafax ay weerar ay kaga dhigan tahay in Xamaas ay ka adkaadeen, laakiin taa xaqiiqdu way ka fog tahay. Yuhuuddu waxay doonaysaa dhul ballaarsi ilaama waxaa la sheegaa Lubnaan, sidoo kale Masar iyo waxay usoo socotaa Syria usoo socotaa inay dhulka ballaariso, dhulka Shaam dhan ay qaadato. marka marka laga imaado taa aragtida weyn iyo hanqaltaaga iyo hanka ku jiro Yuhuudda Rafax waxa xusid mudan mar walba Yuhuudda waxay kasoo horjeedaa in Falastiin jiritaankeedii uu sii jiro, shacabka inay halkaa ku sugan ay mar kale xasuuq kale u geysato sida ayay doonaysaa. calaashaan waxaad ula jeedaa dadka Rafax joogo oo diiday inay wadankooda ka baxaan in ay weerarto oo ay markaasi ooda jabsadaan oo dhinaca Masar iyo Sinai saxaraha Sinai ee Masar inay u gudbaan ay rabtaabaad leedahay oo meeshaas markay duqeynta iyo ciriiriga ay la kulmaan. sidaa ma ula jeedaa? aad iyo aad ahaa, maxaa yeelay halkii kilomitir haddii 10,000 qofood ay ku nool yihiin xasuuq ka duwan Gaza ayaa la filan karaa haddii howlgalka si toos ah usoo gasho gumaystaha Yuhuudda deegaanka Rafax hadda go'aansatay inay kusoo qaado. dowladaha carabta iyo dalalka islaamka ilaa iyo hadda marka laga reebo madaxweyne Erdogan oo ka hadlay arrintaas mooyaane ma jiraan cid kale oo ka hadlaysa. waxaa kaloo jirta la leeyahay sidoo kale dhinaca kale dowlada carab oo ay ku jirto Masar oo duulaanka si hoose wax uga qorsheynaya. arrimahaas maxaan ka ognahay? waa arrin markaa muuqato inta badan Masar iminka haddii la fiiriyo marka laga soo gudbo shacabka, laakiin xukuumadda inta badan waxay u jilicsan yihiin gumaystaha Yuhuudda ay u jilicsan yihiin, waxay ilaalinayaan danahoodii kaliya. wadamada kale marka way ka soo tageen oo hadda waxay leeyihiin Masar ayaa koow inoo ah, mar walba Masar ayaan diiradda saareynaa, wadamada kale waxba lagama gelin. oo waxaa muuqata in xuduudda ay ka xiratay Masar shacabka Falastiin. way adag tahay inay usoo gudbaan shacabka Falastiin deegaanka kale Sinai iyo xuduudaha kale Masar ay la leedahay Falastiin. marka Masar cadaadis weyn ayay saareysaa shacabka Falastiin. dabcan wadamada kale Carabeedna waxay la mid yihiin sida Masar oo kale. waxaa laga yaabaa in mar walbo Turkiga oo runtii garab istaag weyn uu sameeyo shacabka Falastiin oo hore uu sameeyo. waa maxay cadaawadda Masar ay u qabto dadka reer Falastiin iyo wadamada Carabeed oo kale oo Imaaraadka uu ka mid yahay iyo dowlado kale oo ku jira cadaawadda ay u qabaan dadka reer Falastiin oo intaa leeg maxay tahay? waxay ka cabsanayaan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ka baqayaan, waxay ilaalsanayaan danahoodii marka laga hadlayo xukuumadda, sidoo kale kursigoodii ay ilaalsanayaan oo xilkaasi ay markaa haystaan. waa kaliya talis marka laga hadlayo sida khubarada carabta ah oo arrimaha falanqeeya. arrimaha ayaa sabab u ah in mar walbo wadamadan muslimiinta carabta ah u badnaadaan inay ka hadli waayaan qadiyadda Falastiin. waa gartay haddii markaa duulaanka ay qaado Israa'iil meesha sidaas loogu badan yahay oo halkii kilomitirba 10,000 oo qof oo rayid ay ku nool yihiin, maxaa cawaaqib ah oo ka dhalan kara? waxaa sii badan karaa khasaaraha shacabka gaaraya.
sidoo kale waxaa saameyn karaa colaadda rafax haddii sii ballaarato. Masar ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelan doonta maadaama xuduud la leedahay dalkaasi Falastiin. Runtii deegaanka rafax waa deegaan istiraatiiji ah, weliba culeyska weyn waxaa inta badan dareemi doonaa Masar oo xuduud la leh Falastiin. xamaas iyada maxaa qorshe u ah maadaama qasa aad aragtay sidaad aragtay loo galay oo yuhuudda ay u gashay, haddii rafaxna lagu daro waa maxay qorshaha hadda iyagana u yaalla? xamaas weli awoodeedii way muuqataa. Abu Cubayda ayaa wuu hadlay dhowaan soo hadlay, waxa uu yiri diyaar ayaan u nahay dagaalka inaan sii wadno, rafaxna waan difaacanaynaa sidaan u difaacanay Gaza. Marka xamaas runtii waxay yihiin kuwo awood leh. Weliba waxaa la sii saadaalinayaa in haddii xamaas ay guulaysato guud ahaanba carabta, dowladaha carabta iyo madaxda carabta ay u dhammaan doonto oo ay markaa runtii isbedel weyn dhici doono. Laakiin xamaas waxay diyaar u tahay mar walbo dagaal walbo iyo howlgal walbo ay sheegaan yuhuudda inay kusoo qaadaan deegaanada Falastiin. haddii ay guulaysataa tiri xamaas already hadda guusheeda way muuqataa. 200 iyo ka badan maalmood oo dagaalku socdaa, yuhuuddana jilbaha dhulka loo dhigay ciidankooda oo waa socon laayihiin. inta badan Gaza maanta hadda gacan kuma hayaan, maxaabiistoodiina waa soo ceshan laayihiin, xamaasna meesha waa ka saari laayihiin. wadamada carabta haddii ay xamaas guulaysato waa maxay isbedelka la fili karo oo saameynta ku imaanaya? Waxaa la filan karaa in madaxda carabta ay marka koowaad ay ceeboobaan, ceebtoodii banaanka ay soo baxdo. Runtii kacdoonka carabta hore ugu jiray in dib u soo laabto, oo runtii kacdoonkii Rabiicul Carab loogu magac daray guuga carabta, runtii in dib u soo laabto. shucuubta muslimiinta ay kacaan, xilalka imika ay hayaan madaxda kalitaliska ah inay iskaga tagaan xilkaasi. Guud ahaanba wadamada carabta isbedel weyn markaa kasoo muuqdo. Isbedelkaasi markaa waxaa saameyn karaa isleeyahay guusha xamaas. aad baad umahadsan tahay. intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa duulaanka yuhuudda ay qorsheynaysa ay doonaysa inay rafax ku qaado iyo weliba deegaankaasi taariikhihii uu lahaa oo aan ku falanqeynaynay barnaamijka nuxurka dhacdooyinka oo inta badan aad kala socotaan channelka nuxurka dhacdooyinka iyo weliba facebooka nuxurka dhacdooyinka. fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay oo aad ku cusub tahay baraha iyaga bulshada nagu soo biir oo pageka noo follow garee, sidoo kalena youtube-ka subscribe noo saar, barnaamijkana noo like garee, noo share garee. mahadsanidin.